Maraakiibta ilaalada xeebaha Greek ayaa baadigoob ugu jira ugu yaraan 6 muhaajiriin ah oo lagu leeyahay jasiiradda Leros sida ay sheegeen saraakiisha xeebaha dalkaasi oo sidoo kale baaraya shil kale oo la rumaysan yahay inuu kaasi ka dambeeyay. Booliiska dekedda ee xeebta Leros ayaa helay 49 tahriibayaal Afrikaan ah, iyadoo sidoo kale doontii ay wateen macmalka ahayd laga helay badda dhexdeeda, siduu AFP u sheegay afhayeenka u hadla ilaalada xeebaha. Dadka la badbaadiyay oo u badnaa Soomaaliya iyo Uganda ayaa saraakiisha u sheegay in 55 qof ay la socdeen doonta. War ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in la bilaabay howlgalka samatabbixin ah. Waxay howlgalka labaad ka bilaabeen Pylos oo ah meel ka baxsan xeebta koonfur galbeed ee Greek kadib markii 2 markab oo ganacsi ah u gurmadeen 85 tahriibayaal ah oo la socday doonta macmalka ah oo dhibaato la soo diristay. Maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa bilaabay inay raadiyaan cid kasta oo laga yaabo inay weli biyaha ku jiraan, sida lagu sheegay bayaanka. Dadka la badbaadiyay ayaa la geeyay Kalamata oo ah dekedda ugu dhow.